لم نقول ما يمرك هدي دراسة لقوا سمايا ضد مسلمين مثلا الميوغا قلبيتك كوكوري دراسة لقوا سمايا هي علمهن الربادية دراسة لقوا سمايا مين يسكن التجار لا يامادو مالينس ميجي ندت كي جل الراعي شريه مساكين تهلكوا ده اسكت دجنا دراسة لقوا سمايا دأدو داسي اللي بيتمنشري لا سيدي يتمنشروا رحيسه سيدي يفكران سيدي ودقمان سيدي وحو أركان دوني دسي ولا موقتا والدك سي ولا دقمان نولش سيدي ولا دقمان كلسوني دسي سوق قبان وحايين هدي كوا لدراسيو يهدي لدراسيو كوا إنو دالي أما إياقو داليني هل كان شوغا بلشدان يكال جركان كون نولي اسكو نتيجة كما صوابي حكرتو إذن قاعدة لباد بانكو سيني الدراسات كاين تاوقو بدني قلبات كي كفولين sida daraadeed waxa la daraaseeyay waa insaanka reer galbeedka ah waa mar labaad daraasadu waxa hareeya ninka wax baaraya muraayadu xidhan yahay dad muraayad madow xidhan tahay wixii ka soo horbaxaba dunida kullayba hayd madowba waad arkaysaa shaygii laakiin waxaad arkaysaa isagoo uu maxay midab ku leeyahay baad arkaysaa waxa la mid ah aqoonyahan kasta oo wax baadhaya marka hore bini aadamka aragtu ka rumaysan yahay caqiidu rumaysan yahay nolosha siba u arkaa nolosha sidaad u aragtaa waa muraayadaad xidhantay marka aad wax fiirinayso anu muslim baan ahay mabaadi iyo caqaa'id iyo waxba maskaxdayda ka guuxayo sibay maskaxdaydu u kawinanta wax u aragtaa wax kasta aan arkayo waxaad moodaa mindaarka aan ku arkayo markiiba wax ku fiirinaya inuu yahay mindaar hore u jiray waxa la mid ah in baaxis cilmiya laakiin wax rumaysnaa tusaale basiita darwinism theory ninka rumaysan dogmahaasi waa dogma science ma waa dogma waa caqiida darwinism theory ninka rumaysani sibuu bini aadamka u arkayo suuradiisa iyo wixii soo dhan markuu bini aadamnimada daraasaynayo waxa ka dhex muuqata evolutionist inuu yahay daraasaadkiisu wax evolutionka ku cagsiya inta badan ma mulaaxadayo hadday ka soo horbaxdana wuu ignore gareeya waayo isaga uguma jirto xaqaa'iqda uguma jirto xaqiiqo isagu wuxuu arkaa inuu wax waliba evolution ku socdo sidaa ogeed waxaan leeyahay sambalku uu khuseeyaa la daraasaynayo qofka daraasaynaya waxaan arkaya laftiisuna mas'alada tan qayb buu ku leeyahay intaa kadib ayaa waxaan rabaa inaan soo bandhigo haddana kuwii daraaseeyey marka ee reer galbeedka ahaa ee sambalkoodu reer galbeed ahaa ee caqaa'iddaa kala gedisan rumaysnaa siday u arkeen in loola dhaqmo da'daasi aan raba haddaba waayo waxaa laga yaabaa in laydin yidhaahdo ninkii iskuulkan ama jaamacaddan reer galbeedka dhigtay inuu yidhaahdo cilmiga psychology iyo tarbiyadu wuxuu sheegayaa da'da in saa loola dhaqmo anigu taa idin odhan waxaan odhanayaa ninkii reer galbeedka aragtidaa rumaysnaa ee nolosha waxaa ka arkayay daraasaadkii uu isagu sameeyey wixii uga soo baxay maxay u ekaayeen siduu u arkay sawirka qofkaasi siduu se ula dhaqmay waxaan isku dayayaa 4-5 iyaga ka mid ah oo school of thoughts ah inaan idin soo qaado dariskani male waa ka kan yahay qaala allahu ya qaala rasuulka ku yar waxa jira Mareykanka oday waayeel oo ahaa psychology-gooda Harvard University PhD ka qaatay 30 sannadood president jaamacadeed ahaa Clark University ururka ay ku tilmaamaan psychology-ga Mareykan madax u ahaan jiray jariidadii ugu weyneyd ugu horeysay culum nafs Mareykanku lahaa isagoo asaasay presidentna ka ahaa yani hormood la yaqaan ahaa laba buug oo caanana leh oo da'yartaay waxa ku saabsan mid waxa la yiraahdaa adolescence waa laba volume adolescence
1904 meelaha soo qoran filaya midna waxa la yiraahdaa aspects of childhood and education waa nin pedagogiga educator ah cilmiga tarbiyada iyo cilmi nafsi labadaba waa yeel wadanada ugu ahaa odaygaasi wuxuu qaatay waana nin aragtiisa aqeeda markaan idin sheego rumaysnaa evolutionka saaxiib laha Sigmund Freud iyo aragtiisa psychoanalysis-ka aragtiyahaasi ay ku tagay waxay yiraahdaan xagga philosophy-gana Hegel Ernest Hegel odaygii la oran jiray ayuu theory-giisa saaxiib ayuu theory-giisa ku xidhnaa labadaan nin midna odayga Ingiriisi odayga kale Jarmal buu aad ugu xidhnaa ninka kane wuxuu leeyahay waxay yiraahdaan icon ay yiraahdaan ama phrase ay ku sheegaan storm and stress phrase-giisa kan wuxuu ka soo qaatay qolo Jarmala oo storm and drug movement yiraahda phrase-kani waxa weeyaan storm and stress da'adaas buu leeyahay waxa la yiraahdaa gabigeedaba calaamad waxa u ah calaamada ku dhajisan da'ada waxa weeyaan waa fitratu tawattur wal awaasif buu leeyahay waa fitrad duufaano iyo deganaanshiyo la'aana marka wuxuu leeyahay da'da la yiraahdo teenagerku waa da bini aadamku nooc min aljunuun ku dhaco marka wuxuu u baahan yahay buu leeyahay daaweyn waana nooc waali kamid ah waa da tawattur asabi iyo awaasif ay ku jirto erayadu marka ay yiraahdo waxa kamid ah saddex kii aspect sabaa jira buu leeyahay oo da'daasi lagu yaqaano ka koowaad wuxuu leeyahay waa conflict waa qof dagaal badan gaar ahaan waalidka ka soo horjeeda marka wuxuu yiraahdaa conflict is normal not unusual ba qaacida waa isaga da'da haddaad aragto isagoo ku maagaya dagaalansan oo had iyo goor odayga iyo salaanta ay haystaan waa sidii dabeeciga ahayd buu leeyahay sidii laga filayay markaasuu caafimaad qabaa weeyaan duu soo taagnaado markaasuu caafimaad qabaa waayo waa sidii laga filayay da'dan mar hadduu soo gaadho inuu noqdo wuxuu yidhahdaa rukunka labaad uu leeyahay waa mood disruption ama idraab alcawaatif cawaatiftiisu ma degana saacad wuu farxsan yahay saacad wuu cadhaysan yahay saacad dadka wuu ka naxayaa saacad isagaa buu xarka ku durdurinaya saacad waxbuu burburinaysa cawaatiftiisu wax degan maaha shayga saddexaad ee uu caanka ku yahay buu leeyahay waa risky behavior wax walba inuu tijaabiyo oo isagu eego binafsihi inuu wax kasta tijaabiyo ayuu leeyahay ninkan aragtidiisu marka waxay sheegaysaa muraahaqaduba inay waqti dhib badan tahay saasi daraaddeed baa kuwii ku taasuray grandarka la yidhaahdo kale wuxuu odhanayaa muraahaqadu waxay tahay majmuuca min almutanaaqidaat ama waa dhaqamo isburinaya oo nolosha qofkaasi dhallinyaradii waxay u egtay buu leeyahay qof hurdo dheer galay ama xilmi dheer riyo dheer ku jira oo habeen mugdiya soconaya oo marmarka qaarkood if yari walac u odhanaya buu leeyahay haddana uu yahay faan wax ku tusaynay mid indhaa kaa ridaya uu yahay saa daraaddeed buu leeyahay waa fatratu dayaac waa waqti la lumo qoladaasi waxay u aragtaa markaa marxalatu ljunuun inuu yahay qofku daaweyn badan uu u baahan yahay koox kale oo kooxdan ka mid ah gaar ahaan nimankii ay waqtigaasi ninkan isku dhadhawaayeen Sigmund Freud oo isaga waxoogaa yar ka dambeeyey isagu wuxuu qabaa cuqdo aad u liidata oo psychosexual development-ka waxay yidhahdaa muqaba oo ah qofka bini aadamkii wuxuu maraa buu leeyahay 5 stage oo kala dambeeya 5 stage oo kala dambeeya 5 stage kala dambeeyaba saxka oo qofka bini aadamkii gudanayo baa kala gadisan marka nolosha qofka bini aadamka waxa ka asal buu leeyahay saxka so shuuciyiintu ma ilaahay nolosha qofka bini aadamka dhaqaalaha ka oo kolba dhaqaalihiisu nooc iyo nooc ayaa raadeeya